muqdisho hal degmo oo maanta aynu mari karno inagoo xildhibaano ah oo aynu ku lugayn karno oo danaheena aynu ka soo fushan karno ma jirto maxaa been loo sheegayaa ina qawaariijtay leedahay because magaalada nabad ma haytir muqdisho nabad ma amniga muqdisho qoftii soo fargeliso shanta iyo sharciga labadaba way isaga celinayna labadaba diyaar u naad waxay salaxaysaa wado cadowga ay ku helayaan dhiirigelin ay ku helayaan marka ay leedahay shaqo wanaagsan qabatay wayna qawaariijtay leedahay because magaalada nabad ma haytir muqdisho nabad ma muqdisho day nabad ahayn say ku joogtaa ayada senatarada golaha aqalka sare ka hadashay marka qofka mas'uul uu yahayna wuxuu leeyahay xorriyad ah inuu fikirkiisa ku soo bandhigi karo dadka qaar waxa ay leeyihiin aragtida ay soo bandhigtay ayaa looga soo horjeedaa senatarada Afrika wax ka buu moogtahay Bob Marley marka anna waxaan leeyahay saaxiibaday walaashay hurdada ka kac gudoomiyaha ururka haweenka ee maamulka gobolka Banaadir Maamo Jawahir Barqaba ayaa garabkayga taagan maamo marka hore Darsan TV ku soo dhawow marka xigta senator Leila oo maanta hadashay waxa ay ka hadashay amniga magaalada Muqdisho ka jira oo aan la isku halin karin iyo arrimo kale arrimahaas ka waran والله سنتر ليلى ما قرن كرو وحيلتها واقعة كمان هادلين وحين كهذا الشيء وحريالتي أنا هين قفكم مركم مسؤولية هاي واللي بأقل كسر الجديس أول دقي سنة حتى جوجي لما ده هاي نصيب درده أي كهذا الشيء مركل ليلى هداني كل سنة كوكا من مجال المقدشو حلي بعنا أنت بنادر يتجاني توماتة كسو يبسدان أنا ما قرن كرو هدي أيضا سكلو وبوف السوق جرو على قب حنا بلد كل والوجينا ليلى صباح أنا جنا صار علينا أنا جا الصباح والبي هبين والبحيل جانا صعنا أسكرنا ما وضنوا مركا سبب مجالنا انقلق اللوجليو أنا مركو حقيقي صباحي إنه ماشان فرصة وين وقت صباح قواريت oo ay dadka mas'uuliyiinta ah waxay u tusaysaa in dadku ay cabsi ku nool yihiin labo waxay soo bandhigeen ayadii soola dhibaatadii dhacday ayay soo bandhigeen oo gurigiyaaba muuqaalkay duube allah ilaahu ilmahayga adaa ii badbaadiyay ilmahayga duu ilaahay ku badbaadiyay aamusna maxaa u bablagaraynaysaa oo maxaa u qaylinay maxaa ugu diray wariyaal maxaase adiga dhacdadii oo maaragtay maalintay wax dhaceen maxay uga hadli weysay maanta markay ka hadlayso waay markaas intay u soo baxday godka jilcu wiilal Soomaaliyeed jooga dad badan wax ku gaareen oo jidka iska maraayo oo laga yaabay xataa inay qaarkood ay ku dhaawacmeen isbitaaladii ma tagtay goobtii maaragtay ku soo baxday laakiin gurigeedii dariishadaheed ani marka waxaan u fahmay wax iga galay male wixii dhacay senatarada golaha aqalka sare ka hadashay marka qofka mas'uul uu yahayna wuxuu leeyahay xorriyad ah inuu fikirkiisa ku soo bandhigi karo dadka qaar waxa ay leeyihiin aragtida ay soo bandhigtay ayaa looga soo horjeedaa senatarada may waa bataatan waa qalad senatarada inay shabaabka iyo qawaariijta dhiirigeliso aragtideeda marnaba shuruucda dalka wax u fasaxay ma jiraan inaan la dagaalano inaan dhiirigelino iskuma heli karno marka ani waxa ii soo baxayso qofkan waa xor waxay doonto waa ku hadli kartaa laakiin wax walba kuma hadli kartid waa inay xadidan tahay hadday noqoto magaalada muqdisho nabad ma aha miyaa wax la qaadan kara ah dhiigeena meel maaragtay la saraxata caaw malaha sababtoo ah annaga waxaan nahay haween waa inaan dhiirigelino cadowga inaan dhahno waa burbureen waa jabeen waa baaba'een mahane in la yiraahdo muraayadayga waa kan gurigayga waa kan macnaheedu maxay tahay shaqo fiican qabateen waaye waana maaragtay waxay salaxaysaa wado cadowga ay ku helayaan dhiirigelin ay ku helayaan marka ay leedahay shaqo wanaagsan qabatay wayna qawaariijtay leedahay because magaalada nabad ma haytir muqdisho nabad ma muqdisho day nabad ahayn say ku joogtaa ayada taasa waxa la rabaa wariyaashin inta u tagtiin ayada la rabaa in la weydiiyo su'aashadani weydiinay ayada iska leh haddayna magaalada nabad ahayn sidee u joogtaa haddaana xildhibaan ku soco karin yaa u adeega maxay cuntaa wax yaa u soo dega mase barashuda loogu daadiya cuntada taasaa u baahan tahay in la weydiiyo senataradu waaye waxyaabaha ay ka hadlaysay amniga magaalada Muqdisho iyo amniga magaalada Muqdisho waa nabad boqolkiiba boqol amniyan haysanaa nabadaan haysanaa cid walba oo amniga siyaasadaynayso hadday rabto ay tahay mucaarad aragtideedu ku cabiri kartaa dawladda waa la mucaaradi karaa waa laga soo horjeesan karaa waana la taageeri karaa laakiin cid aan kaga kaftamayno in qawaariijta la dhiirigeliyo oo muraayada la soo bandhigo ani aragtidaas ma qabo muqdisho dhawaan dhagxaanta laga qaaday wadooyin aad u fara badan oo si maamulka gobolka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ay arintaas xukuumadda ay sameeyeen iyadoo muqdisho dhagxaantii laga sii qaadayo in amnigeeda walaac laga muujiyo maxaa keeni kara wallahi waxa keeni kara in aanay ku faraxsanayn qoftaas in ilaa iyo isbitaalkii digfer iyo eeriyadoodii iyo wadooyin badan laga qaado konton iyo laba la qaaday kadibna ilaa iyo boondooyinkii waa arkaysa boondadu waa bari iyo meelo badan oo bulshada muhiim ah airportka iyo ayaa laga qaaday waxa la dhahaa ninka fadhiga kugu arki waa looma sara joogsado xamar waa xamar waxa la yiraahdaa kufiso waxa la yiraahdaa kaciso waxa la yiraahdaa koriso
cid ay u joojinayso magaaladan ma jirto ninka jecel iyo ninka necebba magaaladan way martigelisaa marka ayagaa sidii maaragtay ayadaa iswalwaalaysa hadda ayadaa iswado marka waxaan leenahay leylay haddaa mucaaradka aadaysa cidi kuguma haysata waa mucaaradi kartaa dowladda xoraa u tahay codaad leedahay weliba adigu aa wax ku dooran karto laakiin codkaaga ha ku duminin amniga magaalada muqdisho aan leeyahay leela markii laga soo tago siyaasiyiin waaweyn oo hore xilal u soo qabtay ayaa ciidamada amniga marka qaarkood waxa ay sheegaan inaysan dagaal geli karin amniga muqdisho isbedel badan uu ka jirin ma kaligeed oo kaliya ku ekaanaysa arintaas ayada kuwaas horaan uga hadalnay moogtahay annaga hadda ishugan ka hadlayna waa leyla oo amniga caasimadda si toos uga hadashay kuwa generaalayba ka hadleen kuwaas waaba budadooda gaaray u tuman tahay aniga halkaan muqdisho inta ka dareef garaynaan waxaan ku tagnay ilaa furmaan tagayn marka anigoo furinta tagaayo bilaa askari aan ku soconno inay tiraahdo xamar laguma adeegan karo waxaan u arkayaa nolol qiyaali ah dabcan gabadha aan ma garan karo meesha ku noosha waxa dad waxa jiro oo baan rooyo wax la dhaha jiro oo cabsi ku nool oo qalqal ku nool oo wax isku samarayn marka humaagay arkayso leylo ani soo raac magaalada muqdishona ku soo dhaw ana ku tusaa hadaadaba xamar arkan xamar inayna garanayn oo in waxba ka aqoona ay soo baxdaan magaalada anaga sanado badan joogan xamar anaga joogno adeer 15 sanana qawaariita sanka meesha biyaha looga shubaayaan saas u istaagnaay leylay welcome ani soo raacin adeer ana ku tusaayo cabsidan iska saar xamar seef waaye xamar waa nabad xamar waa magaalada caasimadda ahayd waa meeshii la rabay inay tiraahdo waa qawaariita waa jabtaan ka sugayna aad aan uga naxna maanta marka macallimadda waxaan leenahay ku soo dhawo muqdisho cadeey xamar ma ogolaan karno lagama yaabo qof aniga aan uga joojinayo walaa mucaarad walaa muxaafad amniga muqdisho qoftii soo fargeliso shanta iyo sharciga labadaba way isaga celinayna labadaba diyaar una because qawaarij annaga waa la dagaalamayna cid u gogol xaaraysana waa iska celinayna marka dadkii amniga wax ka sheega ayaga la mid yihiin leedahay why not waxba ma dhaamaan maxay noo dhaamaan caawa boqol hooyo ooyeysa wadooyinka taagan oo le maxaa dhacay xamar soo nabad ma xamar waa nabad aniga magaalada muqdisho Washington DC magaalada London ayaan ka jeclaa adeer aan ka doorbiday inaan ku noolaado marka meeshii 15 sano effort ka gelinayay maalintan dalka iimaanay ilmo yaryaraad ahaydeen maanta waxaan ku faraxsanahay inta wiil taagan ee mayga wadayso intaan joogo inay wada koreen oo maanta ay reer leeyihiin ay mustaqbal leeyihiin aniga iftiinka caasimadda waa noloshayda qayb kamid ah midda labaad horaan u sheeg waxaan ku yiri magaaladan waa dhicis ilmaha dhiciska ah hooyada miyay qof u dhiibtaa aniga Jawaahir Baarqaba la yiraahdo adeer magaaladan waxaan uga taxadarayaa sida nafsadayda oo kale amnigeedana deeqo mucaarad muxaafad iyo kursi waa anada issue kala waa cid iimaanaysa cid baxaysa anaga shaqadayna ma laakiin caasimadda Soomaaliya amnigeeda waxa waaye ciidamada ka shaqeeyay wiilala ku dhintay xilligan hadda inta fadhiyo oo dhegle saraakiisha oo dhegle joogta hadda ila hadlays kuwaas u baahan macluusha ku u baqtiyay oo baabaayo oo gaajaysan oo dhibaataysan adeeray dul istaag intaad amnigeena been ka sheegi lahayd marka waxaan dhihi karaa way ku dul kuftaan dhihi karaa wake up garay marka wake up Africa wake up way boogtahay Bob Marley marka anna waxaan leeyahay saaxiibaday walaashay hurdada ka kac